هل كنا سويل دبي مر عند يدي دون راجع تجي طريق دير أنا مري من اللي بدل بلار سيد دولا كون نقول قبصدي ضد يوغاني كلا أفقع إيه ولي بكلا ديمها يو اسمه دورنا درك وكذا تجي القرى ده بديت مقعد ولا بحي دريد إيه كلا تخلي توبيو سأل الله يا دين تي سورة إيه دستور كي سألها دين تي سورة فاتي جري إيه كذا wuxuu doorba kii bedeli ka kala uga sii daraba dilkiiyo boofkiiyo dhacana dadku bowna la qabay deegaankeenu gaar ahaan wuxuu kaga sii daraahe markay diideen falkii diinta ka baxay markay diinadii dalkaba ma laha lay waxaan dalan baabinaba waxaan doorba ee kada xababa isma doorina sidii baan dawladda wali ku nahay wali waa lagu eriyanay halkan aan afarta isku haysano 770 markii wadanka laga eriyo Soomaalida ayaa la soo dejiyay kana ma olimba shalay maxay yiraahdeen iga ka qadaran sabaa مسكين اللي نادي سماع وديار قروه مرك تمر حبال تعالى نقول تمر حبال تعالى ما تقانا وحلا يسكت دي لي انا وح كلام ما وعيل خير بالقصوات ديال الفرد كانوا بالله كويس انا علقوني انا اساس هو يا انه وري وحبكم مايو حرفت waxaan ka naqaanay markiisa intii dhawaad dhawaad iska tuur hooyada digtimaa jiraysa aabahaadii kama hadlandaysan lama ka tuur ku inta ku noolaan lahaa waa tan halka timajiro ku furteen laga bangiga lacag sal loo bushubaya waxa soo dhanyaa keenay culimada keenay xagga diinta baa laga soo maray kolkay labada dood baa laga riday iyo labada dhagood labada dood waayo dadka ugu firfircoon ee degdeg warshad u sameyn kara waayo wad garanaysiin maxaa la inagu yiri waqtiga cunayna ka guusanay sababa wasaylo soo kicin way inaanka ka qaabay kuwa kala waayo ehlo naari weeyaan waa shicir iska ilaaliyo waa anaka qolo fanaariga hooyanima dhasho sheekho ma deelo ma karaan ma joogo magaalada labadani waa maxay waa diiya dadka ku baraarujinayay dadku baraarujinay iyo ku farsamada sameeyay على عقاري على عقاري فنانين قال لي أكثر من لاي ديار ربع ثلاثين لاي أنا واحد لقاي بسن لها فنانين هبوط مقوص شيخ بالوسو لو سايد ومنكر يا الشيخ مبين جاء خياك يا شيخ كل لو قلت يا حق ابا لو سو دخل ايه جواب لو غوري ايه دمرك يا عروت ولا كاي حقوقda dumarka meel kaga dhigina waa adiga saataadina qoysaskiina duban oo amar qaadan iyagas la keedinay la ibara bidisay dumaysiga maxaa doodey عقلك بس كذا لقى قبيس ما كلامه بين بالقرع عندك هذا أكثر صفاء الواحد تريد الصوت والمحي كنا فقالت هذا سبعة في الماء اللي شربته بيان